السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada kanaalkeena hayaanka bulshada. Caawa waxaan inoo wadaagayaa muuqaal aad iyo aad u muhiim ah. Muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay qaabka ugu fudud ee Gmail accountigaaga ama Google accountigaaga aad passwordka ama frustrateska uga bedeli lahayd. Waxaan isticmaalnaa talaabooyin fudud oo qof walba ina kamid ah uu raaci karo. Ama telefoon isticmaal ama laptopkaaga isticmaal. farsamooyinku intooda badan waa isku mid. Anigu laakiin caawa waxaan isticmaalayaa laptopkayga. Waxaan ku tusayaa qaabkii aad Gmail accountigaaga ama Google accountigaaga aad frustrateska uga bedeli lahayd. Ila soco. Talaabada koowaad waxaan soo furayaa Chrome-kayga. Chrome-kii markii hore aan Gmail accountigaan sameynayay waxaan isticmaalay Chrome-kan, haddana isla Chrome-kan aan isticmaalayaa. Ama Crown waxa la yiraahdaa browser wixii aad mataqaanaa ku isticmaasho Google-ha marka wax ka raadinaysid. aabka isticmaalid baa waxa la yiraahdaa Chrome. Marka waxaan soo furayaa Google accountiga si aan frustrateska uga bedelo, yani Google accountiga ama Gmail-kayga waxaan u baahanahay inaan tago Google account setting ama waxa weeye yani waa inaan Google accountiga dhex galaa. Marka laba siyaabood baan sameyn karaa marka aan laptopkayga isticmaalayo. Telefoonka inta badan waa iska fududiya. Talaabada koowaad inaan soo furo profile-kan. Halkan waxaan ku qoran profile baa kaaga muuqda ama waxa weeye sawir baa kaaga muuqda. Laakiinse waxa laga yaabaa adiga inaad profile saaran. Aniga hadda profile baa ii saaran. Laakiinse adiga waxa laga yaabaa inaad profile ku saarnayn. Hadduu profile ku saarnayn waxa ku soo baxaya magacaaga, magaca Gmail-kaaga uu ku samaysan yahay waxa ugu horeeya. Waxa ugu horeeya tusaale kale Maxamed baa kugu qoran. maxamed@gmail.com baa kugu qoran. Wuxuu ku soo qabanaya M. magacii M ahaa ayuu ku soo gaabanaya M buna kugu soo qoraya meesha. Aniga laakiin sawir baa ii saaran. Marka talaabada koowaad ka soo furaya kadibna waxaan leeyahay manage your Google account. Halkan aan ku dhufanaya. kadibna wuxuu ii keenayaa Google accountiga dhexdiisa. Talaabada labaad ee aan sameyn karo waxa weeye haddaan dib u noqdo inaan dhibcooyinkan oo Google Apps waxa la yiraahdo aan soo furo. Wuxuu tusayaa apps kala duwan oo tiro badan oo qaybo kamid ah aan muuqaalada soo socda hadii ilaahay ma aan si fiican ugu faahfaahin doono oo waxtar weyn la runtii qof walba in kamidana u baahan yahay inuu fahmo faa'iido weyn aan ku qabo aniga shakhsiyan. waxaan marka yani galaya si aan Google accountiga u dhex tago waxaan dooranayaa account. halkan wuxuu kugu soo qabtay Google Apps baa kugu qoran marka hore. markaas ugu dul fatid ugu dul qabat macnaha cursor-ka wuxuu ku soo qabanayaa Google Apps. laakiin haddaad click siisid wuxuu ku soo qabayaa app-kiyo kala duwan, app kala duwan waxa ku jira Google Maps, Google Search, Google Account. kan waa Google Account. aniga laakiin maadaama aan rabo inaan Google accountiga ama Gmail-kayga password ka bedelo ama frustrate ka bedelo waxaan u baahanahay inaan Google account doorto. marka isla meeshii uu keenay aan markii horeba imid si aan password uga bedelo Google accountiga ama Gmail-kayga waxaan imaanayaa qaybta ay ku qoran tahay personal information. personal info baa ku qoran. waxa ina ka hadlaysaa xogta shakhsiyanka. qaybtaas aan ku dhufanaya. kadibna wuxuu ii soo saarayaa basic information wax la yiraahdo. basic information maxaa kamid ah? basic information buu ii soo saarayaa. basic information waa ka sawirka ii saarnaa. haddaan rabo sawirka inaan ka bedelo halkaan aan ku dhufanaya. laakiin waxaas ma ahan hadda waxaan u socono. basic information waxa laga wadaa magacaagii, goorta dhalatay, macnaha ma nin baa tahay mise gabar baa tahay. halkaan wuxuu ii soo qorayaa wax la yiraahdo contact information oo ah haddii telephone number iigu xiriirsan yahay iyo email-kayga iyo haddii email kale ay iigu xiriirsan yihiin. option badan baa siinaya mar rabo inaan hore u galo. halkaan sidoo kale wuxuu siinaya address. haddaan gurigayga addresskiisa geliyo iyo haddaan meesha aan ka shaqeeyo addresskiisa geliyo oo qof shaqeeya aan ahay, email-kuna uu yahay email shaqo, iyo haddaan wax mataqaanaa addresses kala geliyo. addresseskan wuxuu Google u isticmaalayaa inuu ugu target gareysto macnaha tusaale kale advertisement ama ads wax la yiraahdo Google sameeya. marka si ads-ka ay dadku u arkaan inta badan information iyo xog buu ka arursadaa. xogtan uu ka arurinayo dhan ayaga waxtar weyn bay u leedahay oo ka balaaran advertisement wax la yiraahdo ama wax weeye xayisiin. marka basic addressesku saas ayuu isticmaalaa. marka aniga waxaas ma rabo inaan ku mashquulo. waxaan imaanayaa qaybta la yiraahdo other information and preferences for Google services. marka wuxuu halkan ku qorayaa ways to verify it is you a setting for the web. wuxuu halkan isinayaa hababka ama qaababka ay Google yani ku cadaynayo ku xaqiijinayo cidda accountigan isticmaalaysa ama Gmail accountigan isticmaalaysa inay tahay ciddii lahayd. marka tusaale halkan maxaa ugu muhiimsan passwordka ama frustrateska.
frustratekayga aniga markii ugu dambeeyay aan bedelay waxay ahayd August. Gmail ko dhanba waxaan samaystay bishii hore 31deedii, laakiin 16 bishan August 16keedii ayaan password ka bedelay. haddana waxaan inii tusayaa si aan mataqaana u barataan. waxaan ku dhufanayaa qaybtan. wuxuu leeyahay si aan mataqaana si akoonkayga u galo waa inaan xaqiijiyaa inaan anigii ahay. see ku xaqiijinaya? waxaan gelinayaa frustratekayga oo frustratekii maba aqaane aniga hadda waxaan rabaa inaan iska bedelee. waxaad leedahay hayaabin macnaha walwalin, waxaad leedahay forget passwordkii ama frustratekeygii iska ilowniyo Google iska ilow balkaas aniga laftigii waa ilaaway. kadibna waad ku dhufanaysaa. aniga Google waxa ii soo qorfiir wuxuu leeyahay choose a strong password, do not reuse it for other accounts. ma taqana wuxuu leeyahay frustrate adag samayso, hana u isticmaalin frustratekan other Google accounts. tusaalan kale haddaad hal email wax ka badan leedahay ama hal Gmail, email iyo Gmail waa isku mid, haddaad hal Gmail wax ka badan leedahay hal password oo isku mid ah ha u isticmaalin. waxaan rabaa inaan passwordka ka bedelo. halkan wuxuu ku qorayaa new password ama frustrate cusub. frustratekayga waxaa laga rabaa inuu yahay at least 8 characters. macnaha erayay noqon karaan, sidoo kale lambaray noqon karaan, sidoo kale calaamaday noqon karaan. marka characters baa la isku yiraahdaa. inta badan spaceka iyo waxa weeye inta ay qaadatay ayuu character ahaan markii la leeyahay ayuu tirinaya. nambarada iyo waxyaalahaasna wuu kusoo daraya. marka aniga waxaan isticmaalayaa password ama frustrate cusub. frustratekeygana waa inuu 8 characters ka kooban yahay ugu yaraan, macnaha waa ka badin kadhaa. sidoo kalena waa inuu yahay password adag. password adag waxaa laga rabaa inuu ka kooban yahay xarfo caadi ah. tusaalan kale magacaagana ha ka dhigan, magaca Gmailka aad ku samaystay ha ka dhigan, qof dadku waxay kugu yaqaanaan magacyada kugu yaqaanaan ha ka dhigan. I love you iyo dadku waxaas Soomaalida mataqaanaa ku qortaan ha ku qoran waxaas. waxaad ku qorataa wax ay soo dadku qiyaas karin adiguna aad xasuusan kadib. aniga hadda passwordkayga waa bedelayaa 3 shuruudood baan ka fiirinayaa passwordkayga. waxaan ka fiirinayaa midda koowaad inuu ka kooban yahay horta xarfo. xarfahaasna qayb ka mid ah inay yihiin kuwa waaweyn. tusaalan kale xarafka ugu horeeyo kale baa waxaan ka dhigayaa mid weyn, capital letter. sidoo kale waxaan ku darayaa number intuu doona ha ahdo ama 3 4 5 waliba waxa ugu badan inta badan 3 hal iyo wixii ka badan baa ku dari kara. sidoo kale waxaan ku darayaa qodobka saddexaad ah characters wax liya, calaamada dollarka oo kale, calaamada mataqaana at la yiraahdo oo kale, hashtag oo kale, asterisk oo kale, waxaas ku daraysaa. marka saddexda qodob anoo raacaya ayaan password cusub samaysanaya. okay marka wuxuu leeyahay halkan waxaan ku qorayaa passwordka wuxuu ku soo saarayaa marka intuu yahay wuxuu yahay hadduu weak ku soo saaro macnaheedu waxa weeye passwordkaaga waa jilicsan yahay. hadduu strong ku soo saaro waxa weeye macnaheedu passwordkaaga ama frustratekaaga waa adag yahay. haddii uu good ku soo saarana waa dhexdhexaad, macnaha mana jilicsana sidoo kalena ma adka. laakiin sakayga muxuu soo saaray strong, daminas waxa weeye si fudud laguma qiyaasi karo. sidoo kale halkan waxaa ku qorayaa ama confirm new passwordkii hadda aan kor geliyo oo new passwordka ama frustratetka cusbaa ayaan xaqiijinayaa. marka tani waxay kuu sahlaysaa inaad passwordka xasuusnaatid. sidoo kale waxay xaqiijinaysaa in macnaha dee waxa aad kor ku qodhay iyo waxa aad niyadda ku haystay isla yihiin. okay haddaan labadooda mid ka mid a wax ka khaldo wuxuu ii soo qorayaa macnaha isma waafaqsana labada password ee kan kore iyo kan hoose isma waafaqsana ayuu ii soo qoraya. bal aan fiirinay inaan wax khalday inaan saxanahay. marka wuxuu leeyahay your password was changed. halkaana imaanana qaybta waxaan imaanana personal informationka, kadibna waxaan taganaa qaybtan, kadibna wuxuu leeyahay passwordkaaga gormaa la bedelay. waxaa la bedelay 3:40 AM. hadda waa habeenkii 9:40 baa soo jeeda. ma seexan guys. waxaan rajeynayaa inaad fahantay, baratay, aqoonsatay, ogaatay qaabka ugu fudud ugu sahlan ee passwordka ama frustratetka Gmail accountigaaga ama Google accountigaaga looga bedelo.
waxaan rajeynayaa inaad wax ka faa'iiday. sidoo kale haddaad nagu cusubtahay waxaan rajeynayaa inaad nagu soo biiri doontid. haddaa horey noola joogtayna qaybta commentiga waxaa kusoo qadha wixii su-aalo aad qabtaan oo u baahan in la xaliyo. waxaan rajeynayaa waxaan isku dayayaa haddii ilaahay idmo inaan su-aalaha ka jawaabo. sidoo kale wixii waxa weeye aan muuqaal kasoo samayn kara aan kasoo sameeyo. sidoo kale waxaan soo gelinayaa youtube-ka muuqaalo badan oo ku saabsan waxyaalaha technology-ga ah ama dadka dhalinyarta ay u baahan yihiin inay fahmaan. haddana waxaa lagu jiraa adduun digital ah, adduun mataqaana isku bedelay teknolojiyadda lagu mataqaana horey loogu socdaa. sidaa daraadeed dhalinyarta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, ama baadiye joog ama tuulo joog ama dunida kala joog, baro waxyaalaha necessary-ga ama aasaasiga u ah si aad u fahantid ulana jaan qaadid dunida cusub. waxaan rajeynayaa muuqaalkani inuu ku anfacay. intaasaan kusoo gabagabaynayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.